السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عروري مرر كله كسر دوادا شيكوينكي بين هواس أنا وجبرتين. waxaa la yidhi hadda ka hor ayaa been hawaas waxa uu soo garaacay gurigiisii asaga oo magaalada ka imaaday waxaana ka furtay xaaskiisa. been hawaas waa uu niyad jabsanaa waxa uuna horay u galay guriga wuxuuna iska fadhiisay meel. been hawaas iyo xaaskiisana waxay ku noolaayeen nolol cariiri ah oo wax shaqo ah muusan haynin dhaqaalana ma aysan jirin. xaaskiisii ayaa u timid waxay ku tiraahday waad soo noqotay adiga oo waxba noo wadin waadna ogtahay gurigan in aysan wax la cuno aysan oolin nolosha aan ku noolnahayna waa ogtahay ma ka kacdid meesha oo shaqo raadisid. been hawaas ayaa waxa uu yiraahday waa hagaag anigu wixii beri ka dambeeyay waan shaqo tegayaa oo shaqo ayaan soo helay ee taas ku abshirayso. waxa ay tiraahday been hawaas oo shaqadee soo heshay shaqo noocay ayaan noo soo heshay. waxa uu yiraahday waxaan soo helay guriga wasiirka ayaan shaqo ka soo helay. markaas ayaa waxa ay tiraahday shaqada aad gurigaas ka qabanaysid waa maxay? waxa uu jawaabay waxaan ka shaqaynayaa qaybta jikada iyo raashin karinta. xaaskii been hawaas waxay ku tiraahday been hawaas waas naqaanaa si raashin loo kariyo waa ogtahay ee jikada maxaad ka qabanaysaa? waxa uu yiraahday anigu raashin ma karinayo laakiin adeega ayaan noqonayaa raashinka la kariyay ayaan soo qaadayaa waxaan keenayaa miiska qadada dadkana waan u qaybinayaa. waxay ku tiraahday waa hagaag shaqadaas waad qaban kartaa. maalinkii dambe been hawaas waa uu shaqo tegay waxa uu aaday meeshii uu ka shaqaynayay gurigii wasiirka waxaa la baray sida uu u shaqayn lahaa iyo shaqada. been hawaasna guri saas u weyn weligiis kama uusan shaqayn mana uusan tegin. waxa uu la yaabay waxa raashin ah ee jikada yaallo iyo miiska qadada waxa la soo daadiyay. ninkii kaaba shaqaalaha ahaa ayaa waxa uu yiraahday been hawaasow waxaan ha raacin ha fiirinin qaladna ha isku gelin booskan aad ka shaqaynaysid ninkii adiga ka hor ka shaqaynayay waxay ka shaqaynayay 20 sano ayuu meeshan ka shaqaynayay. qalad yar oo galay awgeedna waxa loogu tuuray xabsi. been hawaas oo naxay ayaa yiraahday waa maxay qaladka uu galay? waxa uu yiraahday wasiirka ayuu biyo ku daadiyay intuu soo kufay intaas ayaana loogu abaalgaday in uu xabsi galo. been hawaas intii uu naxay oo waxa uu sameeyay karan waayay ayuu shaqadiisii bilaabay in uu qabto oo asaga oo is ilaalinayo. markii raashinkii la dhameeyay ayaa wasiirkii imaaday iyo wafdigii la socday ee qadada maalinkaas loogu talagalay waxayna fadhiiseen miiska qadada. qof saas loo tixgelinayo ee jaga saas heerkaas leh na weligiis been hawaas ma uusan la kulmin. waxa uu dareemaya naxdin aad iyo aad u fara badan iyo fiigtaal iyo asaga oo la yaaban dadkan madaxda ah ee dhalada uu ka arki jiray ee maanta hortiisa wada fadhiyo. asaga oo cabsanayo ayuu raashinkii keenay. waxa uu ku fakarayay ninkii ka horeeyay dhibkii qabsaday iyo xabsigii la geliyay asaga oo argagaxsan kana baqayo wixii saaxiibkiis ka horeeyay inay qabsadaan ayuu soo turaanturooday. wasiirkii ayuuna waxa uu ka hadlayay dharkii. wasiirkii aad iyo aad ayuu xanaaqay asaga oo qaylinayo wuxuuna u yeeray dadkii ilaalada ahaa wuxuu yiraahdaa lii qabto hana la xiro ninkan aadka u edeb daran waa ugu talagal waxa uu wasaqeeyay. been hawaas aad ayuu u naxay waxa uu damcay in uu cudurdaar sameeyo laakiin caruuray cudurdaarkiisii cidina kama aysan dhageysan waxaana la soo istaajiyay meel maxkamad ah. wasiirkii waxa uu wacay ninkii xoraas ah ama askartii ilaalinaysay wuxuu yiraahday soo bax ninkan ii qabo. ninkiina waxa uu soo qaatay seef aad iyo aad u weyn. been hawaasna waxa uu qudaraynayay in la cafiyo asaga oo tugtamayo. ninkiina waxa uu yiraahday madaxa ayaa laga jarayaa. waxaana loo wacay askarigii waxa la yiraahday seeftaada galka kala bax ninkaana madaxa ka gooy. been hawaas ninkii seefta watay ayaa soo agaysaagay asagana waxa uu fiirinayay ninkii wasiirka ah ayuu fiirinayay oo uu tugtamayay laakiin wasiirkii uma uusan jixin. markii uu arkay been hawaas in uusan fakanayn ee maanta la dilayo waxa uu kor u booday oo kursigii wasiirka intuu fuulay oo wasiirka dhalada ka fuulay ayuu koofidii ka tuuray koofidii uga hadlayay waa uuna soo tegay. wasiirkii aad iyo aad ayuu u xanaaqay waxa uu yiraahday isii seefta
ninka idabda daran madaxa aan ka gooye. caruuray been hawaas muxuu sameeyey markaas ma garanaysaa? haa, hadda ayay munaasibkaada tahay. adiga ayaan asxaan kuu sameynayay oo sumcadaada ayaan wasiirow aan ilaalinayay. wasiirkii ayaa yidhaahday, waa maxay sumcadayda aa ilaalinaysay? wuxuu yidhi wasiirow, ani in muddo ah ayaan ku taageerayay, dadkana waa la doodi jiray oo waxaan dhihi jiray nin wanaag u gaaray wasiirkan ma lahan. haddii aa idishid oo raashinkii biyaha kugu daaday awgeed aa idishid, dadka waxa way leeyihiin ku dhihi doonaan wasiirka gardaro ayuu ku dilay been hawaas. laakiin hadda waa dili kartaa oo koofidaadii ayaan ku dheelay, dadkana waxay leeyihiin wuu shaqaystay. saas ayaan sumcadaad u raadiyey. aniga haddii aan dhinto ma rabo sumcadaadii aan jeclaa inay baaba'do, ee hadda waa kana qoorta iga gooy. dadkana kuma nici doonaan oo waxay dhihi doonaan waajibkiisii ayuu gutay. wasiirkii intuu naxay ayuu sababtii iska dhigay. wuxuu yidhi nin caqli badan ayaa tahay oo maskax badan oo xeeladaysto, waana ku cafiyey oo ku dili maayo kuna xiri maayo. bal laakiin wuxuu siiyey hadiyad aad iyo aad u fara badan ayuu siiyey. been hawaasna aad u farxay. ninkii ayuu magaxa ka dhunkaday, waa uuna soo baxay. wuxuu yidhaahday wasiirow, qalbi asagoo ka hadlayo, wasiirow beri haddaan kuu soo noqdo madaxaaba iga goy. haddii uu maanta ilaah iga kaa soo furtay, waxaa ballan ah nin dambe oo madax ah oo xil sare hayo in aanan gurigiisa aan ka shaqaynin. aniga waxaa ii kheyr badan in aan ku noolaado noloshayda aadka u hooseysay. waa uuna soo tegay asaga oo hadiyad hayso, kana soo badbaaday dhimashadii qarka u fuushay. waa inoo mar kale caruuray sheekooyin kale ee been hawaas iyo kuwo kale oo aad iyo aad u qiimo badan oo aad jeclaan doontiin. waadna ku mahadsan tahay halkan aad nala soo gaartay. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.